السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا خيارتا شرفت لكم إيلو فيشيال maanta waxaan doonayaa inaan taataabto xoogaa yar taariikhaha ciyaartoyda inaan ka hadlayaan rabaa. maanta miiska waxaa inoo saaran waa daafac bir ah yaa kugu soo dhacay isleedahay markii lagu dhaho daafacaan lama dhaafi karo waqti xaadirkan. waxaa kugu soo dhacay Sergio Ramos, daafacyadu waaweyn kugu soo dhacay. marka miiska waxaa inoo saaran daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee ninka lagu magacaabo Virgil van Dijk. taariikhdiisa ayaa maanta ka hadli rabnaa. kusoo dhawaada channelka fadlan, haddii aadan horey weli u saarin subscribe saar, like-ta siina share garee insha Allah. Virgil ayaa dabeecadiisa, go'aanadiisa iyo habdhaqanka shaqo ayaa ka dhigtay maanta waxa uu yahay, oo ah inuu ku riyoon jiray inuu mar uun kaga hortago oo ka horwacdareeyo weeraryahanada u waaweyn caalamka. laakiin inta uusan noqon daafac weyn oo uusan gaarin meesha ugu sareysa ciyaarta, ciyaaryahankan Liverpool waxay ahayd mid uu kaga gudbo caqabado badan oo soo martay. safarka uu soo maray Virgil van Dijk waxay cadeynaysaa hal shay, oo ay tahay in aad ku kalsoonaato naftaada mar waliba. waxa uu ku soo koray Petra oo ku taala Netherlands, isaga iyo aabihii Dutchka iyo hooyadii isaga oo wiil yar ah ayaa waxa uu jeclaaday kubadda cagta. sportska xamaasadiisa ayaa u qoto dheer oo uu kubadda xitaa wuxuu gaaray inuu kubadaha ku ciyaaro wadooyinka oo la ciyaaro caruurta kubadda cagta la ciyaari jiray ayaa ka farxisay xirfadda uu leeyahay, qaab daafaceed uu leeyahay Virgil van Dijk. laakiin noloshiisii ugu horeysay markii uu ahaa da'da 12 sano jir ayaa reerkii waxaa ka tagay aabihii, isaga iyo Virgil iyo 2 cunug kale iyo hooyadii waxaa ka dhaqaajiyay oo ka tagay oo khiyaanay aabihii. la soco qaybta xigta fadlan. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar, share, like intaba.